keeni karta cadaabulqabriga iyo sababaha lagaga nabadgeli karo. qabriga iyo qiyaamaha iyo horjoogsiga ilaahay oo qofku xusuusnaado sabab bay u tahay in qalbigiisu qoyanaado, cabsi allana ay ku jirto, macaasidana uu iska ilaaliyo, waajibaadkana uu ku dhiirrado, dadka iyo waxoodabana uu nabadgeliyo, tudhaalana uu yeesho. hadduu intaaba ilaawana ayaan darrana waa u dhammaatay, khayrna laga sugi maayo. saynu walaalayaal ogsoonnahay gurigan iminka aynu deggannay ee duhurka aynu u qada doonanayno, gurigaa guriga ku xigaa waa qabriga, waa hubaaltaas. qofka idhaahda kuma xigo isagaa sheega halkuu duulayo. haddii qof iminka la yidhaahdo guriganaad ku jirto waxaad uga guuraysaa gurigaa kale ee ama aad dhisanayso ama laguu dhisayo, gurigaasaad u guuraysaa, adiga iyo reerkaaguba degaysaan haddii la yidhaahdo naftu duldhigaa saynu ogsoonnay. guriga siaad u wanaajin lahayd, qurxintiisa, adkayntiisa, nadaafaddiisa, raaxadiisa. lacag wuxuu hayana wuu u quudhaa fii islaaxi haada albeyt, gurigaas siduu u hagaajin lahaa. waxaa laga yaabaa kabuhu inay kaga madhaan siduu ugu sii dhidhiiqinayo ee maalin waliya habeen walba u eegayo, shaqaalaha ugu wareerinayuu leehay halkan maydaan hagaajin, iyo halkan waa xumayseen, iyo heshiiskeennu caynkan muu hayn. macruuf weeye. waa kan kirada ah kaad uga wareegaysa ama aad dhisanaysa, waa gurigii adduunyada si aynu ugu dadaalaynaa. bal haddaba haddaynu hubno guriga kan ku xigaa inuu xabaasha yahay, ee bakhsinkaaga hurdada iyo fadhiga intoo daahyada laga gooyo albaabada loo laabo, naxashka halkaa yaallee biraha ee bilaa naxariista xadiidkaa lagaa saari doono, oo xataa aan tudhaalo lahayn. sariirteenna waxaa intay ciiraysa waa idinka arkay, naxashkaasina jinaasadda jidhkeedu googoynayaa markaad iminka sii eegteed sii dul marto. xataa looguma talagelin inuu noqdo mid yaro nafisahoo meydka la daaca. ka laynagu qaadayaana waa kaa guriga hubaashe, kan hadda ku xigaana waa qabriga. marka waa laga maarmaan, maxaynu ku goglaynaa, maxaynu ku iftiiminaynaa, maxaynu ku mutaysanaynaa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo halkaa ka soo iftiiminayo ama ka soo butaacinayo biyaheeda iyo barwaaqadeeda. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ahaa khalqiga kii u fadli badnaa, kii u cabsida badnaa, ilaahayna uma ballanqaaday jannadiisa. asxaabtiisa wuxuu ku tarbiyayn jiray marka qof la aaso inay halkan aad ugu fiirsadaan, aad, oo aanay kana ordin isna ilowsiinine qabriga aad ugu fiirsadaan. kolkaasaa intuu dul fadhiistaa buu xoogaa aamusayay rasuulku sala allahu calayhi wasallam, isagoo fikiraya si dadka indhahooda uu soo jeediyo iyo quluubtooda. waxaa odhanaya istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu atahbiit fa innahu al'aana yus'al. walaalkiinanaad diinta ku walaalahaydeen, ilaahay dembidhaaf u weyddiiya. maanta waxa uu ugu weynuu idinka martiya waa istikfaar, inaad dembidhaaf ilaaha weyddiisaan. wasaluu lahu atahbiit, inuu ilaahay kelmaddii sugnayda aayaddu sheegaysa ku sugee tawxiidkana oo imtixaanka aanu ku fashilminna ilaahay u weyddiiya buu nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam. rasuulku aad buu ilaahay isticaado uga weyddiisan jiray, macnaa ilaahay buu aad uga magan gelay cadaabka qabriga. asxaabta iyo ummaddeennabana wuxuu faray gurigaa aynu ku sii soconno in ilaahay laga magan galo cadaabkiisa. rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam, xadiidkii abi saciid alkhudri uu warinayey saxiixu muslim ku sugnaa, ummaddan iyada ah qubuurta waa lagu balaayaynayaa, waa lagu ciqaabayaa, waa lagu kadeedayaa. falowlaa anlaa tadfanuu ladacawtu allaha an yusmicakum cadaaba alqabri aladii asmacuu minhu. ciqaab baa ka jirta qubuurta ah.
haddii aanan ka cabsanaynin inaa is-aasi weydaanna ilaahay waxaan weyddiisan lahaa inuu xabaalaha idinka maqashiyo waxaan ka maqlayoo kale anugu waxbaan ka maqlayaa dig iyo demta ka baxaysa xabaashaa waan maqlayaa gudaheeda marka ilaahay uu maqashii baan odhan lahaa laakiin waxaan ka yaabaa ina maydka bannaanka ku tuurtaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam uma aqbala calaynaa biwajhihi faqaal intuu nagu soo jeedsaday nebigu si dhabah ayaa wuxuu idhi tacawaduu billaahi min cadaabi alqabr markaasaannu yidhi nacuudu billaahi min cadaabi alqabr faqaala tacawaduu billaahi min cadaabi alqabr qaaluu nacuudu billaahi min cadaabi alqabr waar ilaahay ka magan gala cadaab alqabr ilaahay ka magan gala ayuu rasuulku ku leeyahay asxaabtii ummadda ugu fadli badnayd waa guryaha aakhira ka u soo horreeya markaynu ka anbabaxno gurigan aynu deggannahay aynu ku xadhoonayno cusmaan binu cafaan waynu soo xusnay halkaa marka uu yimaadday inuu ilmayn jiray ilaa garhkiisu uu qoyi jiray markii la weyddiiyeyna wuxuu idhi nebi moxamed baan maqlay isagoo leh inna alqabra awalu manaasili alaakhira guryaha aakhiro u soo horreeya qabrigaas oday iyo islaan iyo madax iyo racyad cid waliba ay gelayso hadduu qofku halkaa ka nabadgala wixii ka sii dambeeyaa wuu ka sii sahlan yihi hadduu ka nabadgeli waayana famaa bacdahu ashaddu minhu waxaa ka dambeeyana uu ka daran yahay waxaan mutaysan baana warkahayn buu leeyahy wa samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul maa ra'aytu mandaran qatu ila alqabru afdacu minh goob kasta oo kadeedan oo kakanoon arka qabrigunbaa igaga sii daran buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aad buu uga digaya ummadda gurigaa xaadhxaadhkiisa iyo hagaajisadiisa si loogu dadaalo oon loo ilaawin wuxuu nebigu idhi xadiidkii caaisha ay ka warinaysay ee saxiixa ahaa inna lilqabri daqda low kaana axadun naajiyan minha lanajaa sacdu bnu mucaad radia allaahu canhu wa ardaah qabrigu waxa uu leeyahy qabasho cantuuguu leeyahay qofka intuu qabto feedhu isweydaaranayaan gigtaa hore hadday cidi ka nabadgelaysana asxaabigii sacdu bnu mucaad la odhanayay baa ka nabadgeli lahaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam sacdu bnu mucaad waxau ahaa ninkii ummadda isagoo rasuulku dhex jooga uudhi adigu hoggaanka u qaba garsoorka ee yuhuudda xukumayey ilaahay iyo rasuulkiisuba garsoorka maanta way ku dhiibeen ee dhowrka boqolee yahuuda dilka ku xukumay buu ahaa markuu shahiiday carshuraxmaankaa u dhaqdhaqaaqay ilaahay carshigiisa ninkaasi hadduu ka nabadgeli waayo buu uhi qabriga qadashadiisa yaa ka nabadgeli buu nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam halkaa dadna minooma joogo duunyana ma joogo ehel iyo asxaabtoona ma joogo ilaahay baa wuxu uhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqarribukum cindanaa zulfaa ilaa man aamana wacamila saalixan faulaa'ika lahum jazaa'u dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun dadkiinni iyo duunyadiinnu iima soo kiin dhowaynayaan baa ilaahay wuli laakiin camal saalix ayaa xaggayga idiin keeni kara oo idiin soo keeni dhowayn kara min almuqarabiin waxaa ilaahay kuu dhowayn karaa camal saalix goobtaa iyadaa furaashkeennu waa ciid wehelkeennuna waa dirxigaa qofka kala diraya ee mar jidhkiisu uu isbeddelayo maruu giriin iyo cagaar noqonayo maruu madoobaanayo 6 bilood ka dibna qolfoof noqonayo dhowr sano ka dibna cajbudanabku uu soo hadhayo lafdhu muuqdoo keliya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku celcelinayaa isagoo ogsoon waxaynu heellannaynu hore ugu jeednaa inaanu ahayn halkaasi meel kale yah markaasaa wuxuu udhi yatbacu almeyd 3 qofka dhintay 3 baa raacaya 2 way soo noqonayaan midna wuu ku hadhayaa dadkiisu iyo duunyadiisu way iska soo laabanayaan nin wanaagsan buu ahaa caynkanuu ahaa allaha u naxariisto way iska soo dhaqaajinayaan camalkiisii unbaa ku hadhaya wuxuu noqdaba yaa man bidunyaahu ishtagal wagarra tuulu اlamal ilmowtu ya'ti bagtah waalqabru sanduuqu اlcamali qofkan waa ninkaa shaacirkaa waxau leeyay qofkan adduunyadiisu ay mashquulisayow yididiilada dheerina qalbigiisa ay degtayow
geeridu kedana way kugu iman qabriguna waa sanduuqa camalka waa halkaa waxaad la tagto dowladdii way iska hadhay xisbigiina wuu iska hadhay maalkii badnaana wuu iska hadhay ooridii ubadkii intii kugu dhoweyd way iska hadheen waxaa u horreeya kugu soo horraynayaana waa malaa'igtaa ilaahay uu soo diraya waxa kala mutaysataanba culimmadu waxay isweydiiyeen cadaabulqabrigu qofka ma ka kala go'ah mise waa lagu wadayaa ilaa qiyaamaha waxaa la isla waafaqsan yahay qofka munaafiqa ama gaalka ah waa gaalka labadiisii nooc lagama kala goynayo ilaahay baa wuxuu idhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب قبرقا سدال لوغو عذاب يقلن هري يقلن ضمبابا إلى قيامة عذابك وينان لقيو قفك عاصقا ولغا يابين لغا كالقويو والنبي حسي عليه الصلاة والسلام من قبرقا لغا هلايو بقول شيدا الله قري وعتابا وقيليو هل شيدا البالوغا ديغي إني ملايكتو كل دفتاه markii jeedalkii lagu dhuftayna naar baa isu baxdo meeshii ka oloshay uu suuxo markuu soo miiraabay buu yidhi maxaa igu garaacdeen waxaa lagu garaacay xagga dambaynu ku sheegi insha allah asbaabta waxaa markaa xadiidkaa ka muuqanaya in laga kala joojiyey markaa waxaa lagaga joojin karaa ilaahay fadligiisa alcafuwu alqafuur ilaaha cafiskiisu uu badan yahay dembidhaafkiisuna uu badan yahay laga joojiyaa laga yaabaa inuu sabab uga dhigana waa laga yaabaa ducada iyo dembidhaafka ay u weyddiinayaan ubadkiisa iyo asxaabtiisa iyo ehelkiisu iyo ummadda islaamku istikfaarta ay qofkan u weyddiinayaan iyo ducada in laga joojiyana waa laga yaabaa haddii laysu diro kuwii u qaalisanaa weeye sababaha waxaa ka mida gaalnimada cadaabulqabrigu ku yimaado aayadda waynu soo akhrinay waxaa ka mida cadamulistibraa'i min albowl qofka oo nijaasta iska nadiifin waaya oo kaadida isku daadaadiya rag iyo dumar mid kasta ahaadee sida ay ku doodaan dadka taariku salaadka ah iyagoo odhanaya nadiif baanan ahayn dharkaygaa nijaasa jidhkaygaa nijaasa intaa markaan nadiifiyaabaan salaadda tukan doonaa wuxuu qirayaa maadaama aanu tukannin inuu sida ayga isu nijaasayn karayo waxaa cadaabulqabriga sababaha keena ka mida iskudirka naarafuufnimada dadka dhexdooda loo kala dab qaado arrimahan soo socda culimo iyo caamo wax ka nabadgelayaa wuu yaryahay iskudirkaasi waa naqlulkalaami bayna annaasi calaa wajhi alifsaad warkood dadka loo kala qaado si loogu kala fogeeyo quluubtooda haddaad warka u kala qaaddo dadka adoo doonaya inaad quluubtooda isu geyso beenba ha ahaatee ajri baad ku leedahay labadaba wuxuu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaashii uu dul maray ee qiiqaysa dayaamaysay ee udhi labadan xabaalood labada qofe ku jira midna waxaa lagu cadaabay nijaastiyo kaadida aanu iska duwi jirin midna naarafuuf buu ahaa ka baac mushtareeye inuu dadka isku diro haybada iyo kadibka beenta iyo xanta bal adigu ka warran waxaa shaqadaynoo ah habeen iyo maalin saad uga qadaawiyarya xantii faraha badnaydee dadka la xamanayay oo uu nebigu ku daray waxaynaan xanba u haysan ayuu ku daray xan dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaaga muslimkood ku sheegta wuxuu karaahiyaysanaya haba ku hor taagnaadee waa xan beenta wuxuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam habeen la dheelmiyey dad qawlalka la jeexaya ilaa dhegta la gaadhsiiyo oo sanka la jeexaya ilaa dhegta la gaadhsiiyo oo isha la jeexaya ilaa dhegta la gaadhsiiyo labada dhanba malagga hadduu weyddiiyeyna wuxuu idhi waa dadkii intay subaxii guryahooda ka soo baxaan yakdibuuna xataa tuxmala ila alaafaaq been bay saa u daldalayeen ilaa jihooyinka caalamka la gaadhsiiyo waa warbaahinta iyo maas midiya waxaan la yidhaahdood geliso been ama adigoo dadka beenta u qaybiya been la sheego weliba baahday waxaa sagaalaadoo ka mida lixaadoo ka mida waxyaabaha qofkuu ku mutaysan kara cadaabulqabriga alhijratu lilqur'aani laa yatlu walaa yacmal qur'aanka kariimka ahoo qofku intuu xafidsanaa kadib uu iska ilaawo oo aanu akhriin kuna camal falin
nebigaa la tusiyey calayhi salaatu wasalaam intoo la dheelmiyaa la tusiyey dhagax weyn in dhakada lagaga bashaaqinayo falxajaru yudahdih dhagaxu xaggaasuu u cararayaa ninkii la dhacayay intuu soo qaadanayaabay dhakadii haddana sideedii hore ku noqonaysaa u bogsanaysa haddana waa lagu bashaaqinayaa malaa'igtii wadday markuu weyddiiyeyna waxay idhaahdeen waa qofkii qur-aanka qaatee xafiday kadibna iskaga tegey iyo salaaddii subax iyo qur-aankii iyo qiyaamuleylkiiba uu iskaga tegey duunyo iyo madaxnimo iyo maal iyo waxaasuu ku doorsaday markaa rafada afdala alashyaa fa rudda afdalu alashyaa wuxuu ka tegey wixii u qaalisanaa waxaa laga burburiyey wixii u qaalisanaayoo maskaxda ah mimerigiiyo meeshii uu ku xafidi jiray qur'aanka mar haddii uu ka sii daayey qur-aankaa ilaahay ku difaaci lahaa waa la bashaaqiye waxaa ka mida zinada wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii malaa'igtu ay dawaafinayeen habeenkii dad meel moofo ah ka qaylinaya moofadan aynu furinka ku dubno oo holacu saa uga baxaya dad dhex midhiiqinaya sida darxiga saa u dhex boodaya oo qayliyaya oo qaawan weliboo rag iyo dumar leh xaaraan bay isu qaawin jireen oo cawradoodii ay u qaawiyeen markuu malaa'igta weyddiiyeyna waa azunnaad baa layidhi waa kuwii sinaysan jiray wuxuu arkay nebigu waxaa ka mida ka siddeedaad akluribaa baasha ribada la ydhaahdo la cuno waxaa la tusiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam nin webi dhex taagan nin kalena daanta ama qarka webigu taagan yahay dhagax buu saa ugu tuurayaa afku ka liqsiinayaa meel fog buu ku geynayaa kolkuu haddana soo noqdo ayuu isidhaado soo bax ee uu soo dhowyay buu dhagaxaa liqsiinayaa webigu dhex taagan yahayna waa dhiig waa riba cunayaashiibuu ayaa loogu fasiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sagaalaadoo sababaha cadaabulqabriga ka mid ah asariqatu min alghaniima haniimada macnaha waa maalka dadweynaha haniimadu waa wixii cadowga laga hela ummadda ka dhexeeyey waa dakhliga ummadda qayb ka mida weeye markaa xoolaha dadweynaha iyo ummaddu ay wada leedahay oo qofku uu halqafo oo uu fadhataysto qori iyo qalin midkuu doonayaba ha ku qaata iyo qowleh waxa weeye iyadana asbaabta cadaabalqabriga xataa asxaabtii nebiga laga dhaafi waaya calayhi salaatu wasalaam nin addoona baa shahiiday oo xabbad seeraarii ku dhacday oo xadiid saxiixa markuu dhulka u dhucu dhintay bay asxaabtu idhaahdeen waa shahiid falahuljanna jannu heli asxaabtu wuxuu idhi ha ka yaabin waa naaran yihi qabriguu ku naaran yahay maalin heblaayuu inaga qaatay macawis yaroo qhaniimada ka mid ahay maalin maalmaha ka mida nin asxaabii waxa uu leeyahy radia allaahu canhu anoo nebiga la socda xabaalana aannu ag marayno ayuu dhowr jeer uf buu nebigu idhi uf baa laguidha waad uraysa anigaa ismoodo waaba naxay haddii aan eegayna wuxuu idhi adiga maahee xabaashii hebel baynu ag maraynaa meel heblaayaan uga diray maalka ummadda si uga soo ururiyo macawisuu inoo xidhay ayuu inaga xadhay dhar buu inaga xadhay fa durica midluha al'aan naaran macawistii oo naara baa iminka loo geliyo halkanuu ka dhex botorinaya ka qaylinaya aniguna uf baan ku idhi buuri bal kuwa taawarrajeexay ka warran foqyo aan dargarownle kuwa sameeyey xoolii ummadda masaakiinta laga ururinayay iyo baabuur cadcad oo kala noocoo moodelladii u dembeeyey dadka halqafaya qaadanaya ummaddu arkaysa haddii ummaddu ka dhicin kari weyda dee ilaahay baa arkaya subxaanahu wa tacaala ama mid sharkadeed ha ka qaato ama mid qabiila ha ka qaato ama mid qaran ha ka qaato ummadda agteeda siduu qofkaasi ugu ceebaysan yahay ayaa ugu ceebaysnaan doonaa qubuurtiiyo ilaahay agtiisana subxaanahu wa tacaala qofku inuu waxa ummadda markuu dhex joogo kabala'aan ka socdo taariikh wanaagsanna ka tago taasaa isaga iyo ehelkiisaba ammaan u ah waxa tobnaad oo cadaabalqabriga lagu mutaystaa jarrulisaari khuyalaa qofka oo kibir daraaddeed macawista shullaha dhiga surwaalka qamiiska ayuu dhulka jiidayaa uu hayruufayaa ee arkaa inaan aad u xarragoonayo oon madaxtinimo iyo maal leeyahay bukhaari waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay waxa uu xusay nin kibrayoo maradiisa jiidayoo dhulka lala gooyey oo macnaha aakhirana ma gaadhin weli qiyaamadiina ma gaadhin iminkana qubuurtu ku cadaabanyo dhulkaasii liqaya yatajaljal sidii qaaruun dhulka loola gooyoo kale waxaa 11 oo ka mida asbaabta
cadamu nusrati almadluum qofka madluumka ah oo aan loo hiilinin hadduu talo makaa nabadgalaabaa isweyddiin leh nabadgelyaynaan bixinayn maxaynu u nusraynaa qof muslim oo dhibban ninkaa horeynu ka soo warramayna ee halka jeeda lagu dhuftay qabriga dhexdiisa qayladu ka dhammaatay ee suuxay yidhi maxaa sidan la iigu galay markuu soo ladnaadee laga joojiyey waxaa la yidhi waxaanad u hiilinin waxaa la yidhi sallayta salaatan bikayri duhuur wa mararta calaa madluumin falam tansur salaad baad ku tukatay dahaaro la'aan adoo jinaabaysan adoo caado leh adoo bilaawaysaa adoo nijaas leh baad ku tukatay markaas darbaddanaa kugu dhacday aad la suuxday qof madluumah oo ama maxkamadi dulmiyayso ama qabiila dulmiyayso ama dawladi dulmiyayso ama shakhsi dulmiyayo ood u hiilin kari layd baanaad u hiilin qowl iyo ficil iyo qalbi waad iska weydaarata maxaa iga galay baad taasaa lagu liqsiiyey waxaa 12 asbaabtaa ka mid ah anniyaaxatu cala almeyd axaadiid dhowraa nebiga waxaa kaga sugmay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofku qabrigaa lagu cadaabaa qaylada ehelkiisu u soo barooranayo waa baroorta aragteen ee la leeyahay si nin weyn inuu meesha ka baxay loo ogaado leewarka baroorta aad u qabta oo aad uga sanqadhiya qaylada baroortaas meydka loo barooranayo qabrigaa lagu cadaabayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaasoo keliya kuma ega waxaa loo soo galay dadka culimmada madaxda dadka khudbadeeya waxaa 13aad oo nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam asbaabta cadaabulqabriga inuu ka mid yahay qofka khatiibka ah ama ummadda la hadlaya yaquulu walaa yacmal wayaqra'u alqur'aana walaa yacmal ee qur'aanka akhriyaya ee khudbadda jeedinayan ku camal falaynin ama waxa uu leeyahay ee wuxuu samaynayaa kala duwan yihiin waxaa nebiga la tusiyey calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo maqasyo waaweyn afka kaga jaraya dadka qaarkood markuu nebigu yaabuu yidhi kuwani maxay ahaayeenna waxaa leeyahy waa khutabaa'u ummatik ummaddaada kuwii khudbadayn jiray wanacuudu billaahi min daalik ilaahay baynu ka magan gelayna ee qawaaliinta ahaan facaaliinta ahaan yaquuluuna walaa yafcaluun waxbay sheegi jireen aanay samaynayn qur'aankay akhriyi jireen manay ku camalfali jirin nooc kala socday ahaanoo kala kacsan oo arrinkoodu aanu xagga wanaagsan u urursanayn cid kastoo khudbadaysa madaxdii culimmadii acyaantii dadka u taagan ee iska dhigaya dadka inay toosinayaan mar haddii ficilkoodii iyo qowlkoodii isweydaartay abaalmarintaasaa ilaahay uu siiyey waxaa 14aad alfidru fii ramadaana bikayri cudurdaar la'aan oo qofku ramadaan uu ku afuro waxaa nebiga la tusiyey miishaar labada dhamman qof lagaga dilaacinayo kolba way bogsanayaan waa lagu dilaacinayaa waa kuwii ramadaan iska cuni jiray iyagoon gaadhin wakhtigii la cunaye ciidda ayaa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu qofku kaga nabadgeli kara cadaabalqabriga kow waxaa ka ah ilaahay tawxiidkiisa walibticaadu can ishirki iyo gaalnimada iyo noocyadeedoo laga durko waxaa ka mid ah ribaad fii sabiili illaah difaacuu qofku diinta iyo dalka iyo dadka u galu cadowga ka difaacayo waalqatlu fii sabiili illaah isagoo ku jihaada dagaalka cadowga qiraa'atu suuratu almulk qur'aankoo la akhriya gaar ahaan suuratu tabaarak biidni illaahi tacaala iyadoo ilaahay uu waafajiyo habeenka jumce iyo maalinta jumce oo qofkuu dhinto almowt bidaa'i albaatin qofkoo caloosha u dhinta cudurrada caloosha daacuunka iyo shubanka iyo wixii la mid ah alacmaalu asaalixa camallo wanaagsanoo qofku uu joogteeyo khaatumo wanaagsanoo ka muuqata marka la soo ururiyo cadaabalqabriga waxaa lagaga nabadgalaa taqwa allaah waalistiqaama waalhabaatu cala alxaq diintoo lagu toosnaado ilaahay oo laga cabsado iyo camalka saalixoo la joogteeyo ilaa intaad halkan kaga ambabaxayso yuhabbitu allaahu aladiina aamanuu buu ilahay wuxuu ilaahay qowlka haabitkaa ku sugayaa kuwii kolka horeba ku sugnaa kolka horeba kuwii qur-aanka iyo diinta iyo ashahaadada iyo tawxiidka ku noolaa unbaa ku dhimanaya ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina waafajiyo intaasoo lagu badbaadayo intaasoo lagu halaagsamaya ilaahay naga nabadgeliyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم ومن عذاب الآخرة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، وسلط الظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد